gabar aan isku fiicnayn oo aan wada socon jirnay ayaa waxay ii qarisay in la qabo wada socod dheer kadib waxaana dhexmaray gogol dhaaf meeshana waxay ahayd Sacuudiga aniga markii waxaan aaday Mareykanka oo aan hadda xaas iyo carruur ku leeyahay muddo kadib iyadii ayaa isoo wacday iguna wargelisay inay uur qaaday habeenkii baashaalka waxaan ku iri arrimahaas ha igala hadlin uurkana aniga malihi waxaan si ka naxay hadda waxa isoo wacday gabar 17 jir ah oo leh aabahay baa tahay haddii aan waraystayna dadka waxay igu yidhaahdeen gabadha waa adiga oo koobi ah macnaha way ku eg tahay marka shiikhow maxaan sameeyaa ma dhiigan ka qaadaa ma aniga dhalay maadaama aan meher jirin oo ay khalad aan sameeyay ku dhalatay dambigaas intuu gaarsiisan yahay sideense uga toobad ula imaada qaabkeese ula dhaqma gabadhaas su'aashaan waxay naga soo gaadhay qolka 114 وآفوين كان هذا كهل لأن الزنا ذو أيلاد شرعه وروحه كفوا هذا يتراها ولا كفوا كان واي دباتوي نوع عنه كله تدعي جوابت سؤال شو وحوي جوابها siduu sheegay ninku haweenta markii ay kulmayeen oo xaraan iyo zina ku kulmayeen nin kala qabay soo saasma طيب ilmahaas meeshaas ay haweentaasi dhashay ninkii qabay baa iska leh laana nabigu wuxuu yiri alwaladu lilfiraash ilmaha dhashay haweenta la qabana ay dhashay ninkii qabay ee ay gogosha u ahayd baa ilmaha iska leh walil aahir al hajar ninka zaaniga ana dhagax bulay waxa laga wada ya bimaana ama hal qadiyo waay wax ilmaha meesha uma yaal ama mee dhagax baa lagu dilo waay oo la garaaco si loo fasiro marka ilmaha gogosha ku dhashay ninkii baa iska leh waase haduu ka suuroobi karo way haduu ka suuroobi karo maxaan ka wadnaa bimaana markii curfiga caadada la fiiriyo hadii ilmahan uu dhali karo oo mesela nin reerkiisii la joogo la nool waqtiyada is arkeen waqti ku dhow is arkeen nin muddo dheer xaaskiisa ka maqnaa 4 sano ka maqnaa haday ilmo keento kama suuroobi karo Soomaa marka waa inuu ka suuroobi karo haduu ka suuroobi karaba ilmahan gogosha iska leh waa kow waa mid labaad ninku hadiiba la yiraahdaba ilmahani biyihiisi baa laga abuuray waana ilma zino abtirkiisa ma qaadanayaan bijmaac ulama isaga abtirka waxa lagu qaataa inaad meher ku dhalato Soomaa iyo xuquuqda aabanimo ilmuhu wuxuu ku qaataa inuu meher ku dhasho meher ku la dhalanin sidaas daraadeed ilmaha zinada hooyadii buu ku abtirsadaa waa ina heblaad ee ina hebel ma hooyadii bay isdhaxli abtiyaashii xaqoodu aadi hooyadii waxay dhasho walaalay noqonayaan laakiin ninkan orgiga meesha wax ku daadiyay isagu tag tii laga lulay baa laga lulay saas daraadeed waxay tilmaamaysaa dumarku inay aad uga taxadaraan iyadoo zinata hadana tabiicaadka iyaga raacaya waa ka baday ninkan waxoogaagisa intuu kuleylka iska daadiyay dhaqaaqay hawshu iyaga ku hay ayada marka loogu abtirin oo ilmuhu xaq u aadaya tana waa qodob wabitaali uma baahna mar haday sidaas tahay uma baahna inaad dhiig ka qaato uma baahna inaad DNA ka qaato ilma aad og tahay ba inuu zina yahay DNA iyo koobi anu iyagi iyo koobigaagii way qaabka wax lagu sugo shariicaduna abtir iyo nasab kuma sugto gabadhaasi hooyadeed baa dhashay ninkii gogosha lahaa baa dhalay haduu diidayo inkirayana waa inuu li'aan sameeyo waa kii gogosha lahaa gogoshiisa ay ku dhalatay haduu leeyahay anigu ma dhalin kaasi li'aan buu sameeyay ilmaha uu iska anfinaya haduu li'aan tami waayo ilmuhu nasabkiisa iyo abtirkiisu qaadanaya isaga dhalay kan Soomaaha asagu ilmaha shaqo isku meeyla maxaan sameeyaa hadaadun lillahi isaga caawinayso lillahi hadaadun ruux bini aadan oo dhiban aad maxay u caawinaysaa meesheeda waay laakiin wax kale oo idinka dhaxeeyay ma uu jiro maxaan sameeyaa
dembi weyn baad gashay ee toobad keen. laba dembi baad gashay. kow horta inaad zinaysatay waa faaxisho. mar labaadna nin gogoshiisa walaalka oo muslima inaad wasakhaysayna waa dembi labaad. sooma oo xataa qaabu kaaga cafin karo aanan garanaynin hadda ilaan xaq bini aadan sooma gogosha nin baa lahaa gurigiisa waad wasakhaysay. haddaad gurigiisa iyo gogoshiisa wasakhaysay sida saxda waxay ahayd intaad noosha inaad u tagto tiraadi cafi. laakiin adiga miyaad tagi kartaa dhigi kartaa nin miyaad ku dhigi kartaa reerkaagiiba ya reerkaagii baan ku khaldamayno iskaga cafi miyaad dhigi kartaa. hawshaasi waa hawlun aakhara jirta waa xuquuq ilaahay xaggiisa jirta. waxaase kula gudboon inaad tawbad keento oo si dhaba ilaahay ugu soo noqoto tabaaraka wa tacaala. wixii meesha ka dhashay ilmahaasna xukunkiisu waa sidaas. wabillahi tawfiiq. sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.